kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha badan ee nagala socda daafaha caalamka halkani waa TV-ga News TV. Qodobada maanta aad ku daawan doontaan wararka caalamka waxa kamid ah gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir oo laga mamnuucay inay safar dibadda ugu baxaan kadib qarixii lagu dilay injineer Yariisow. dowladda Soomaaliya oo digniintii ugu darneyd abid dur dhigtay Sheekh Cali Wajiis. maamulka Puntland oo deegaanadiisa ka mamnuucay shirkadda Daale Airline kuna bedelay shirkad kale oo Ethiopian. Al-Shabaab oo mamnuucday in la dhiso jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye. Korneel Caare oo shuruudaha ku xidhay wada hadallada uu la galayo Somaliland.